السلام عليكم صاحبada qiimaha iyo qaayaha badan waan idin salaamay salaan kadib muuqaalkan meel fog gaarsiiyey sabab jirta awgeed tiktokgayga isbuucyadan maalimahan wax aan soo dhigi ma lahan waxaana koosgareeyey tiktokgay akoon waarantaa laiga saaray oo waa laiga haystaa qof walbo idinka mid ah waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa inaa ii taabataan copy link 10 mar inuu ii taabto qof walbo idinka mid ah 10 mar copy link ii taabto tiktokgayga waa lagu dhegan yahay wuxuuna ku dhow yahay in hawada laga saaro marka waxa ay caabin kara waa idinka waxaan si respect ah oo xushmad leh idinka codsanayaa in tiktokgaas copy linkiga ii saartaan oo asxaabtiinina u shargareysaan muuqaalkan meel fog u gaaro si akoonkaygana mar kale dib ugu soo laabto sababta aniga wax soo dhigi waayeen sabab kale ma ahan problemka oo tiktokan ka jira awgeed waa tiktok waa laga heystaa gaalka ku dhegan marka caawimadan idinka baahanahay channelkan in mar kale aan dib u helaan rabaa si oo la ii fasaxo oo wax laga heysta laga qaado marka waxaa rabaa adresska copy linka wax badan ay taabatiin qof walba 10 mar copy link aad u taabta oo 5 qof idinka mid ah muuqaalkan la wadaaga waxaan hubaa akoonkayga mar kale inuu sidiisa ii noqon doono aad baad u mahadsantihiin kadib waxaan eegi doonaa xaaladaha kooxda Arsenal sanadkan way ka jajaban tahay qaasatan 8 game ilaa iyo 9 game ugu dambeysay Arsenal la yaqaanay ma ahan bandhigeeda wuu liitaa kubadaha xitaa waxay iloobeen sida gool loo dhaliyo Arsenal waxay ilowday xitaa sida gool loo dhaliyo haddana dhabtii saas ay tahay Arsenal isma dhiibin dagaalka way wadaa tan waxay saansaa fiican u tahay ama qof walba ka dheexan kara in Arsenal sanadkan ay championska Premier League noqon karto sababta koowaad aan kuu sheegaa oo Arsenal championska Premier League sanadkan ay ku noqon karto Arsenal labadii sano ama 3 sano la soo dhaafay iyadoo oo bandhig fiican sameynaysa goolasha fardhinaysa haddana ma ahayn koox tartanta kulamada muhiimka ah Arsenal waa laga badan jiray hadda iyadoo bandhig waaliha sameynaysa goolasha fardhinaysa kulan muhiim ah Arsenal hadday ciyaaraysa ama hogaanka ku sii dheereysan karta ahaata ama hogaanka hadii lagu la dhigo ay isku furdaamin leedahay ahaad Arsenal way loosta gareyn jirtay sida caadada ahayd qof walba uu ogyahay Arsenal kulamada muhiimka ah ma badin jirin oo way loosta gareyn jirtay iyadoo fiican saddexda xilli ciyaareed la soo dhaafay Arsenal saas ay laakiin xilli ciyaareedkan sababta uga adkeysanayo oo aan ku leeyahay Arsenal sanadkan waa champions ma taqaana intaas oo dhan Arsenal nasiibka ka maqana iyadoo fiican ala garaacay iyadoo fiican ay draw galeysay hadda iyadoo xun ay badinaysaa markaan ku leeyahay Arsenal saddexdii kulan ama 4 kulan ugu dambeysay baan ku sheega 4 kulan ugu dambeysay Arsenal ciyaar hal gool caadi ay dhalisay wuxuuna ahaa kulankii laga badinayo oo 2-1 looga badinayo gool Arsenal dhalisay gooshaas ugu dambeysay waxayna heshay Arsenal 7 dhibcood ilaa ay kulankii xalay koobi EPL kaafkii koobkii xalay ciyaaraysay Arsenal dhibcooyinka ku heshay ku dar goosh on gool kulankii kaas ku horeeyay oo 3 dhibcood Arsenal qaadanaysa 2 gool oo kamid ah on gool ahayn 2 gool meesha ka dhashay wad on gool ahayn marka Arsenal sanadkan nasiibkii oo naga xiileyn jiray anagoo wanaagsan oo ku loosta gareyn jirnay City hadda waxay ku dhiban tahay Arsenal inay u istaagtaa ama loo qabto Arsenal oo everka goolasha aan ku aadin karin goosh hadda kulankii uu xalay Arsenal ciyaartay ugu yaraan 7 fursad oo nadiif ah oo goolaha la hor imaaday Arsenal yaa dhalinay wax dhali waalwa xidigii Arsenal waxay biloween gool dhalintii kulankii kore Leo Trossard iyo Bukayo Saka nin walba 3 fursad oo nadiif ku qabeystay oo gool aheed oo gool laba filan kare oo anaga xitaa u dabaaldegay goosh intay Leo Trossard ku bedel siinayo Declan Rice u baasay oo kale kulankii Premier League ugu dambeeyay goosh iyadoo la dhanaa u dabaaldegay laakiin nasiib dara birtay ku dhacay sidoo kale 2 darbad kala birtay ku dhacay Bukayo Saka 4 fursadood oo nadiif ah uu gool ka dhalin kara
gooshi markuu imaado dhinacaanu maraa ama goolhayaa ka qabsanaya. xalay waa aragti kii xalaa ugu darnaa ninka la yidhaahdo Nuno Madueke darbad nooc kastoo ku tuuray goolhayaha wuxuu dhahay na wax la iga dhalin maayo. ninkan Gabriel Martinelli ha sheegin kurid Jesus kurid na uu diiday gooshaas in la dhaliyo waa la waa iyada oo gooshi anaga dhalin weynay oo meesha ku salacsannahay wax noo dhaliyay la'ana korna la soo karoosay waa la isku dagaalay ku beddelay suuq qabtay dhub iyaga iskaga xareeyay. Crystal Palace iyaga iskaga xareeyeen. marka tan waxaa la dhihi karaa Arsenal sanadkan nasiibkii ka maqnaa oo la dhahay Arsenal nasiibka ka maqan mooye hadaa maqla jirtay Arsenal nasiibka ka maqan mooye muxmo Arsenal nasiibka ka maqan mooye muxmo guulay u socota haddaad maqli jirtay nasiibkii wuu imaaday. hadday Arsenal wax wada nasiibaa la dhihi karaa goorma ugu dambeysay Arsenal inay 2 gool dhalisay goorma ugu dambeysay ma ii sheegi kartaa adiga daawana ma ii sheegi kartaa Atletico de Madrid ugu dambeysay 2 gool nadiif Arsenal inay dhalisay kulankii Atletico Madrid ugu dambeysay dhexdan Arsenal wax ay dhalinayso ma laha wax ay dhalinayso oo 2 gool nadiif oo Arsenal dhalisay bila gool ah oo bila penalty oo Arsenal dhalisay yaa ii sheegi kar ma jiraan ha raadin waxba raadin ma jiraan 2 gool waayda wax badan ma iyadana 2 gool laga ma dhalin karo iyagana ma dhalin karaan. marka fursadda labaad aan ku sheegayo Arsenal sanadkan Premier League iyada qaadaysa fursadda labaad aan ku dhahan ku sheega Arsenal awal waxay la dhutin jirtay ama la daalac dhici jirtay dhaabacyada soo gaar xibla iga maqan waxa ma samaysan kari yaryani blue maqan ay ku jirtay laakiin sanadkan offers xidig walbo Arsenal ah kan ugu yar wuxuu maqnaa muddo bil ah kugu soo celiyay xidig walba kooxda Arsenal ka tirsan kolon walba xidig walba wuxuu maqnaan jiray kan ugu dhow bilow maqnaana haddana kan ugu dhow isoo bil maqnaa Arsenal way isfurdaamisay way isbixisay hebla iga maqan ma dhihin qashinkay safata laacib uu noqonaa hadda asiga caabina midkay safta wax kala waa hadda waxaa laga yaabinayaa ninka la yiraahdo Hinkaba la yaabana oo bandhigiisa iyo Masquera iyo waxay sameeyeen Masquera wuu tagay wuu dhaawacmay Hinkaba asigana wuu tagay wuu dhaawacmay halay Calavoria waxa la meeshaas ka tag imaw dhaxdan CB imaw toob noqday. marka Arsenal idna uma baahan xidig walba hadii ka dhaawacam way isbixisa xitaa Arteta wuxuu sameeyay 3 ilmo yar oo academy soo waday xalay 3 ilmo yar oo academy oo laba kamid ah defender ay yihiin halka kan kalena uu qadaxaya wuxuu dhahay meeshan iyo imaada wax yaani wixii la keenaba oo Arsenal loo soo xusha toobay noqonaya cunugaas oo hadda 16 jirka oo New Saliba la dhahay kulna la soo geliyay waa another level ma rumaysan kartid wax sameynaa hadda wuxuu ku jiraa dooqyada Arsenal numberka koowaad loo soo xushay oo daafaciyada numberka koowaad Arsenal loo soo xushay waa 16 jir oo qaata ah sidoo naf u yahay aatanimadiisa hadaa aragtid adaa yaaba kubadaha asiga ciyaarayna ma aamina kartid kooxooyinka ka soo horjeeda ninkaas wuu dhibaa qaatiyay ka taagan yihiin wax la qaban kara maahan hadda waa New Saliba ninkaas unstoppable waa marka haddii aad isleedahay Arsenal daafaca ka maqan way u dhutinaysaa daafaca ka maqan Arsenal saas ma sameyn kartaa hadaa isleedahay walaalkayo gambirkaas iyo kula dheeraan hadda iyo kula dheeraan oo kula dhici doonaaye iyo kula dheeraan hadda sigistaag ay Arsenal u joojinaysa ma laha nasiibka wata wixii safta wax kale u noqonayo marka hadda waxa la sheegay Hinkaba inuu si maqnaan doono isbuucan had soo socdana ma ciyaari doona laakiin nin hadduu taganina imaanay waxaa la sugaya Arsenal oo la yaab ku noqotay in Gabriel uu ku soo laabtay trading caadiga sidoo kale Arsenal waxaa soo laabtay weeraryahankeeda heer Germany ee ninka la yiraahdo Kai Havertz asigana waa diyaar weerarka Arsenal oo ku dhibneed boos walba 3 xidig ay u xulan kartaa Arsenal hadda de boos walba oo weerar ah 3 xidig ay u xulan kartaa Jesus jooga waxaa jooga Kai Havertz jooga Victor Gyökeres jooga labada garabna waa aragtay 3 u fadhis marka Arsenal sanadkan waxba laga ma qaban kara mucaaradka hal gaarsiyo muuqaalkan mucaaradka Arsenal